waxaynu qaadan doonaa bacd alamhila tusaalayaal kooban oo dadkii nebiga la dhaqmay calayhi salaatu wasalaam iyo marka hore nebigu sida uu tareengareeyey ama uu tababaraya waayo qofka muslimka ah markuu cusub yahay ee cibaadaadkiiyo diinta uu barto ee aanu aqoontiisu aad u badnayn aanay raasukhin xamaasku inta badan xamaasadda tirada badan leh waxay ku kaliftaa inuu xadgudub badan sameeyo waxaa arki doontaa nebi maxamed oo saxaabada hahaya markaasi oo ka ilaalinaya inay xadgudbaan iyagoo ama cibaadaadkii soontii salaadii cibaadaadkoodii raba inay aad u sameeyaan laakiin ay uga muuqato nebiga calayhi salaatu wasalaam in xadgudub uu ku jiro miaal xadiidka sheekhaynku soo saaranaya imaamu axmedba nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo keenay cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas ayaa wuxuu leeyahay aabbahay ayaa gabadh qurayshay ii guuriyey oo reer fiican ka dhalatay cabdillaahina wuxuu ka mid ahaa nimanka dhallinyarada ah ee markaasi aadka u cibaadaysta saxaabada dhallinyarada ee cibaadada badan lu ku jiray aabbihii baa u guuriyey markaa inan qurayshiyada inanta markii loo guuriyey aabbihii oo camar ibnu caas oo saxaabi kale ahi wuxuu dareensanaa inankiisu siduu cibaadadiisu arbay xadgudub ku keentaa habeenkii arooska markii inantii loo hooyey ayuu subaxii odaygu gabadhii u yimi wuxuu yidhi bal warran ma fiican tihiin waa nabad qabnaa bay tidhi cabdillaahi iga warran buu yidhi iyo xaalkiisa waxay tidhi xal oo dhan waa tukanaye nicma alcabda lirabbi waa addoon u fiican bay tidhi rabbigii oo salaad buu u taagnaa laakiin furaashkana ma yaqaano taftaydana ma taaban bay ku tidhi ninkii arooska ahaa ee xalayta loo aroosay gurigii isagu salaad buu isla dhex taagay shaqada kale laga rabay salaad buu waday ilaa waagiisii uga baryayey aabbihii subxii markii uu soo waraystayna waxay tidhi waa nicma alcabdu lirabbi allihiisa si fiican buu u caabudaa laakiin furaashka reernimona garan maayo taftaydana muu arag bay ku tidhi camar ibnu caas siduu inankiisu sheegayo aabbaa ii yimi buu yidhi oo markaasuu imaagay buu yidhi wacadanii bilisaani carabku igu qaniinay buu leeyahy ama waasmacanii hujra wou caayey odaygii subxii way caayay buu yidhi markii uu ii yimi wuxuu yidhi inan reer ka dhalato quraysha baan kuu guuriyey markaasaad caddishay oo cidlo kaga dhaqaaqday soo maaha buu yidhi waxaaga ina keen war nebigu uu kaxeeyey markaa cabdillaahi bnu camar ibnu caas nebi maxamed baa loo geeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo la wado nebigu calayhi salaatu wasalaam ashtakadii markii loo sheegay ayuu yidhi yaa cabdallah kayfa taqra' alqur'aan kayfa taqra' alqur'aan cabdallow qur-aanka sidaad u akhridaa buu yidhi dee habeenkii baan khatimaa buu yidhi habeen kasta waa dhammeeya qur-aanka sidaad u akhridaa waa dhammeeya wuxuu nebigu ku yidhi kayfa tasuum sidaad u soontaa wuxuu yidhi maalin kasta waan soomaa maalinba ima dhaafto dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaad yeeshaa soonka maalmuu u tilmaamo qur-aanka buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam 40 casho ku akhri 40kii maalmood bil iyo 10 habeen mar dhammee markaasuu wuxuu yidhi innii astatiic aktar min dalik